wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya ayaa qandaraas ama helisyo la galay shirkado qaabilsan dhinaca iyo shidaalka. Mr. Maxamed Nuur yani dhameystiraas. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo badaroolka ee xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamuud Abduqaadir Hilaal oo la hadlay wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Sona ayaa u sheegay in wasaaraddu ay heshiis la saxiixatay shirkadaha caalamiga ee Shell iyo ExxonMobil kuwaasi oo haatan ka baxay xaaladii ku qasabtay in ay wadanka kaga baxaan tan iyo burburkii dawladda dhexe ee dalka isagoo inta ku daray in ay aqbaleen in ay bixiyaan dhammaan xuquuqihii lagu lahaa kuwaasoo ku saleysanaa qandaraasyadii ay la galeen xilligaasi iyaga oo raacaya habraaca ku xusan sharciga shidaalka ee dalka. mudane Maxamuud Abduqaadir Hilaal ayaa sheegay in madaxda shirkadaha Shell iyo ExxonMobil ay diyaar u yihiin in ay ka mid noqdaan geedi socodka soo saaridda shidaalka Soomaaliya. shirkadaha Shell iyo ExxonMobil waxaa jirta qandaraasyo lala galay xilligii dawladda dhexe ee 80-yadii oo la siiyay xirmooyinkaasi ayaa ah waxa ay ahaayeen intii dawladda dhexe jirtay waqtiyadii heshiiska lala galay sida ku cad in ay ka shaqeynayaan soona saaraan shidaalka laakiin dawladda dhexe markii ay meesha ka baxday oo dhibaatadii dhacday ayay ku baxeen duruufta ayuu yiri wasiir ku-xigeenka macdanta iyo badaroolka. wasiir ku-xigeenka ayaa xusay in haatan ay madaxda shirkadaha aqbaleen heshiiska maadaama dawladda ay ku guuleysatay inay meel mariso sharciga shidaalka isla markaana ay ka soo jawaabeen baaqi wasaaradda oo ahayd in shirkadihii caalamiga ahaa ee heshiisyada lala galay ay dalka dib ugu soo laabtaan. tani waxay muujinaysaa in wadanka ay xasilooni ka jirto taasi oo Soomaaliya guul u soo hooyatay ay u tahay waana talaabo lagu farxo in shirkado caalami ah oo sidan u waaweyn ay diyaar u noqdaan in ay dalka dib ugu soo laabtaan ayuu yiri mudane Maxamuud Abduqaadir Hilaal. Mr. Maxamed Nuur JTV magaalada Baydhabo.